waxaa gabagaba ku dhow weerar ku bilaawday qaraxyo oo Maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab caawa ay ku ekeeyeen hotelka SYL ee magaalada Muqdisho. waqtigan imisa dagaalame ayaa la dilay, tirada guud ee dagaalamayaasha weeraray hotel SYL waa imisa, ciidanka sida gaarka ah gacanta waqtigan ugu haya howlgalka iyo halka waqtigan ay wax marayaan ayaan warbixintan idinku soo koobayaa. Maleeshiya hubaysan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa caawa weerartay hotelka SYL ee magaalada Muqdisho, waxaana weerarka ka horeeyay qarax oo ruux nafti haliga uu fuliyay. ha yeeshee waqtigan ayaa waxaa gabagaba ku dhow in la soo afmeero weerarka oo saacado badan qaatay. wax walba oo ku qarsoon weerarkaas ayaan warbixintan idinku soo gudbinayaa. tirada dagaalamayaasha weerarka qaaday ayaa guud ahaantood lagu sheegay inay ahaayeen 4 dagaalame. waxaa la xaqiijiyay in gaari ay ka degeen kaas oo ay kaga degeen afafka hore ee hotelka SYL ee Muqdisho. dagaalamihii ugu horeeyay ee ka tirsan Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa isku qarxiyay afafka hore ee hotelka SYL ee Muqdisho. waxaa xigtay in 3 dagaalamo oo hubaysan watana dariiska ciidanka dawladda inay gudaha u galaan hotelka, isla mar ahaantaasina tacshirada ay iswadaarsadaan qaar ka mid ah ciidanka ilaalada ka hayay hotelka. waxaa u suurta gashay Maleeshiyada weerar ka qaaday inay gudaha u galaan hotelka. tirada waqtigan dagaalamaysa ee ilaa iyo haatan hotelka weerarka ka dhex wado waa 3 dagaalamo oo ka tirsan Maleeshiyada kooxda Al-Shabaab. hotelka oo ahaa mid saxmad badan, isla mar ahaantaasina siyaasiyiin, wariyaal iyo agaasimayaal ay ku afurayeen ama afurkii kadib halkaasi ay u sheeka tageen, ayaa xogaha la helay waxay sheegayaan in dhimasho iyo dhaawac ay ka dhasheen. xildhibaanada, agaasimayaasha iyo mas'uuliyiinta kale ee dhaawaca soo gaaray ayaa badi wada ah kuwa ka dhaawacmay ama ku dhaawacmay derbiga ay ka boodayeen kaas oo aad u dheer, isla mar ahaantaasina waxay badankooda u boodeen dhanka iyo beerta nabadda. waana halka dhaawacyadu ay ka soo gaareen xildhibaanada badan, inkastoo ay jiraan xildhibaano kale oo dhaawacyo rasaas ay gaareen. waqtigan dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab ayaa weli ku dhex sugan hotelka SYL ee Muqdisho, mana jiro wax dagaalamo oo ilaa iyo haatan ciidanka ammaanku ay toogteen. waxaase taa beddelkeeda ciidanku ay ku mashquulsanaayeen inay badbaadiyaan madaxda iyo shacabka ku sugnaa hotelka SYL oo waqtigan aan la hadlayo ay soo gabagabeeyeen. ciidanka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa si guud ula wareegay howlgalka ka dhanka kooxda shabaabka ee weerartay hotelka SYL ee Muqdisho. waxaana waqtigan ciidanka nabad sugiddu ay yihiin kuwa waqti kooban loo qabtay inay ku soo afjaraan weerarka xubnahan ka tirsan Maleeshiyada Al-Shabaab ee caawa weeraray hotelka SYL ee Muqdisho. howlgalkan waxaa bilowgii la wareegay ciidanka sida gaarka u tababaran ee booliiska Soomaaliya ee Haramcad. ha yeeshee taliyahoodii ayaa ku dhaawacmay gaarigii ay ka degeen dagaalamayaashii hubaysnaa kaas oo qaraxyo ay ku rakibnaayeen, iyadoona halkaasi ay ku sugan yihiin saraakiil askar kalena uu gaarigii qarxay. waxaana qaraxaasi dhaawac culus u ka soo gaaray taliyaha ciidanka sida gaarka u tababaran ee booliiska Soomaaliya ee la yiraahdo Haramcad, Taliye Fanax. waana midda keentay in howlgalka ay dib ula wareegaan ciidanka hay-adda sirdoonka Soomaaliya, kuwaas oo waqtigan si weyn howlgal ka dhana kooxda uga wada hotelka SYL ee Muqdisho.